naagtan gabadheedii 6 sano ka hor dhimatay ayay ku aragtay meel birthday party ah. yani kii sheekay dhacdadan yaab badan siday u dhacday. naagtan waxaa la yiraahdaa Luz maalin maalmaha ka mid ah ayadoo gurigeeda joogto ninkeeda markaa binaanka uu ku hagaajinayo gaari oo markaa ay leedahay naag ay qaraabo yihiin oo qaraabo kor ay yihiin ninkeeda naag ay ninkeeda qaraabo kor ay yihiin ayuu gaari uga hagaajinayaa ninkeeda binaanka marka xaafadeeda binaankeeda koro marka ayadana gudaha ku jirta marka mar qur ah waxay ka war heshay gurigeedii oo marka dab uu ka kacay marka laba wiil ayay lahayd labadii wiil ay binaanka soo dirtay si ay marka binaanka soo aadaan oo dabka ugu soo baxaan marka gudaha gashay si ay u soo badbaadiso cunug yar oo marka dhalan 4 bir dhalan ama 4 bir 5 bir week meelahaas dhalan cunug yar wuxuu jiifay sariirtiisa oo marka ahayd qol kor ah oo marka stairs-ka kor ah marka way oraday si ay u soo badbaadiso qolkiisa isaan soo gashay waxay aragtay dabki gurigi gabadh yareed ay jiiftay oo marka halkaas uu dabka ka bilowday oo gurigi dhan wada gubanayo si uu soo badbaadiso sariirtiisa ay tagtay aday fiirso ma walaha cunugeeda sariirta kuma jiif dabku ila sariirteeda ma gaarin sariirta cunug ma gaarin dabku ila laakiin cunugiiba kuma jiifo meeshii ay seexisay cunug meeshii ma jiifo inta ka fiiri marka dib nolosheeda u baqday guriga dhan wada gubanaha ka soo baxday halkan cunug idan dhahay cunug waaye gabar waaye marka wiil ma ahan waa gabar marka saas ogaada marka dabdamiskii ayaa imaaday ku dabka daminay marka waa damiyeen dabkii cunugii la raadiyay marka cunug malaha guriga dhan waa wada gubtay damba soo noqday bis xalay cunuga duu halkan ku jiray waxay u badan tahay inuu marka wada gubtay isaga dhan hatta lafaha laga markay Luz markuu laga dhicin waayo dabkii markuu dabka guriga wada qabsaday sariirtii yareed u jiifay way ka soo waysay markay eegtay marka way la noqon waysay booliiska imaaday kiis ay qoreen laakiin waxba dab loo jeedin waa la iska dhaafay kiiskeeda la iska soo xiray marka 6 sano ka soo wareegtay marka maalin maalmaha ka mid ah Luz ayadoo joogto meel family birthday party ah ay ku aragtay gabar yar oo marka ayadoo eg Luzna marka ilmaheeda kala kulli ayaday wada egyihiin marka waa shakidi gabadhi ayaday u eg tahay ayada lagama aqaan waxay istiri gabadhaad yareed ama la xaday shaki daraadis gabar uu qof kale watay marka iskiga ma dhigi kartid oo gabadhaydu waa ma dhigi kartid magta waxay soo bisay gabadhi yareed u yeertay waxay ku tiri tintaada waxa ku jirta xanja ama xanja kaaga dhigan tinta keenan ka fujiye arko tinteede 5 xabo tin ay kasoo goysay bis gabadhu iska deysay baagay soo gashay si dhow loo baara DNA inay gabadheeda tahay intii kale loo ogaado marka Luz way tagtay Luz marka boqol waxay aaminsantay inay gabadheeda tahay maadaama ayada u egta lagama aqaano ilmeedii kalena ay u egta ilmeedii kulli ayaday u egta Luz ilmeedii kulli ayaday u egyihiin marka sidaa darteed gabadhana ayaday u egtahay marka waa qaaday tintii qaaday waxay u geysay ninkii keeskeedii marka 6 sano ka hor loo dhiibay marka inuu guda gala booliiska kama aysan aqbasheen laakiin ninkii atoniga u tagtay marka adiga waa barbariday laakiin waa laga diiday muddo 1 saac ay marka ay tuugtamaysay si uu marka kiiskii dib u furo marka dambe laga aqbalay hal baari tintii ayaa la baaray iyo marka wax la isu baaray dhiigii Luz waxa la ogaaday inay Luz tahay gabadheedii sidee bay ku dhacday gabadhii ayadoo guri gubanaha ku dhex jirto sidii loo ogaay 6 sano kadib sidee bay ku dhacday in birthday party ay ka soo muuqato markaan kii dhacdadan oo dhameystiran dhacdada marka halkan ay ka bilaabanaysaa naagtan halkan sawirkeeda soo saaray waxa la yiraahdaa Caroline ninkeeda iyo familka ninkeeda waxay u sheegtay inay uur leedahay marka muddo badan ay u sheegaysay inay uur leedahay taa ilaa baashi lagu baaray uurka ay keentay si ay marka ugu maleeyaan inay uur leedahay laakiin ayada uur ma qaadi karto xanuuno jira awgeed uur ma qaadi karto laakiin ninkeeda uma sheegin way ka qarisay iyo familkiis marka waxa la gaaray 9 bilood wiilina beenta dadka kulli aqaan kulli beena u sheegtay uur ay leedahay 9 bilood ma la dhaafay wiilina cunug ma hays marka ayadoo sidaas maalin maalmaha ka mid ah gaarigeedii ayaa break uu ka halaaway Caroline marka Caroline ninkii Luz
waxay ogeed ninkii luus inuu hagaajiye gawaarida marka gaarigeeda ayaa ka hadlaabay bareega luus xaafadeedana way ku dhoweed sidaa darteed ma gaariga halkaasay soo dhigtay si looga hagaajiye ninkii luus gaariga ayuu u hagaajinayey wuxuu ku yiri intaan gaariga kugu hagaajinayo gudaha gal marka xaafadda gudaha iska fadhiiso intaan gaariga kaaga hagaajinayo marka xaafadda gudaha iska fadhiday waxay aragtay marka inay luus leedahay cunug markaa dhalan maalmo kooban dhalan inay leedahay ogaatay marka gaarigeeda marka balaan ay la timid inay cunugan xadda oona la ogaanin bis iyagoo markaa iska mashquulsan ninkiina gaarigii uu banaanka uga hagaajinaya marka gaarigii loo dhameeyeyba cunugay soo qaadatay adi iidan loo jeedinay duska yartire gaariga ay fuushe intaysan markaa tegin guri kasoo bixin kahor qolkii uu cunuga jiifay dab ayay qabadsiisay si hadhow loogu maleeyo inuu gurigii markaa cunuga u jiifay uu ku dhex gubtay cunugay soo qaadatay gaarigii loo hagaajiyey markii soo fuushay ika u jeedin soo tagtay markaas gurigii wada gubana waatii marka luus ay aragtay guriga gubanay hadday gashaba sariirta cunuga markay tagtay waatay ka waysay marka ugu dambeyn Caroline way qiratay waxay isu biskuuliya sheegtay marka waxaa lagu xukumay 9 sano oo markaa xarig ah luusna marka gabadheeda waa loo soo celiyey sheekada halkaas ay ku egtahay halkan waxaan kusoo gudbinaa dhacdiyoonka markaa ugu yaabka badan dunida marka subscribe saarta channelka subscribe saarta muuqaalkan like saar gambaleelkan furta muuqaalkan haddaad dhamaysatay hoos kusoo qor waan dhamaystay marka khayr in rajeynaya insha Allah saasaan ku ogaanaa inaad la socotiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.